soo dhawaada asxaabey walaalkiina barqado maantiinii wada sheekaadu cabsi badan ka horse sheekadan intaana bilaabin naga hubi inaad muuqaalkan like saartid sidaasoo kale janalka dadka cusubtaana gacmo furan kusoo dhawow oo janalka subscribe dhaho let's go bilowga sheekadeenna waxay ka bilaabanaysaa sanadku wuxuu ahay dhammaad saara xilligaani waxay joogtay laboorka xilligaasna waxay qorsheynaysaa inay la kulanto wiilka iyada aadka u jecleed kaasoo ay baraha bulshada iska barteen bilooyin ka hor ninkaasoo lagu magacaabayay john saara xilligaasi farxaddeeda lama qiyaasi karin tan kale uso dheerna waxay ahayd markii ugu horraysay inay iyada afrika soo aadayso inkastoo xilligaasi cabsanaysay haddana mar walba saara waxaa jiidayay jaceylka ay ninkaasi john u qabto si kastaba haatee diyaaradeeda ayaa ugu dambayntii soo cadhigatay magaalada amaala eelaboorka ayaana bilowday ninkii inay ku sugto wax yar kadibna waxaa yimid ninkii john oo xilligaasi gacanta ku waday ubax saara oo xilligaasi celi weysa ayaa ninkiiba habsiisay john sidaasoo kale aad ba ugu faraxsanay ismarxabeen kadibna islamarkiiba baabuur uu bannaanka ugu diyaariyay ayuu gabadhii soo saaray kadibna baabuurkii ayaa dhaqaajiyey safar dheer ay galeen magaaladii ayay bannaanka ugu baxeen kadibna waa ay yaabtay waxayna tiri maxaa dhacay isagana wuxuu u sheegay magaalada bannaankeeda inuu degan yahay saara oo xilligaasi yaabaneed wax kale ma aysan dhihin kadibna waa ay ka aqbashay ugu dambaynna baabuurka ayaa wuxuu soo istaagay meel webiya kadibna waxa uu ku yidhi saaray dhegayso xaafadeennu waxay ku taalla webigan dhinaciisa kale marka waxaan u baahannahay biyahan inaan ka gudubno dhinaca kalena aan tagno saara ayaan islamarkii waxay tiri laakiin sidee ayaan u gudbaynaa macquul maahane webiga xilligaas waxaa ku jiray dad fara badan iyadana waxay isweydiinaysay sida intay u gudbi doonaan waxayna u sheegtay xitaa iyada dabaal inaysan aqoonin isagana wuxuu dhahaa welwelin aniga ayaa ku caawinaya kadibna kaa gudbinaya meeshaani iyadana waa ay ka aqbashay sidaasoo kale ninkii jona wuxuu u yeeray nin kale ay saaxiibaayeen wuxuuna ka codsa alaabtan dhinaca kalena ugu soo gudbiyey isagana waa uu ka aqbalay isla markiina gabadhii ayuu dusha soo saartay wuxuuna bilaabay webiga inuu sidaas usoo dhex gooyo laakiin intii webiga ay kusoo dhex socdeen ayaa xilligaasi waxaa jira laba gabdhood oo dhinaca dama fadhiyaya waxay dhaheen gabadha sanadkani lagu ducaysa doono ayaan u malaynayaa gabadha inay tahay saara xilligaasi waa ay maqasho waa ayna yaabtay waxayna tiri maxay ka hadlayaan dadkani laakiin john ayaa wuxuu yidhi iska daawa dad meesha isaga dabaalanaye waxba u qaban saarana waa ay ka aqbashay waxyar kadibna webigii ayay soo gooyeen kadibna xaafaddii ayuu u soo kaxeeyey xilligaasi dadka xaafadda idil waa ay soo dhoweeyeen sidaasoo kale saara xilligaas ayada laftirkeeda aad bay u faxsanayd sababtoo waxay arkaysa sida dadka ay u soo dhoweynayaan ugu dambayntiina john waxa uu keenay xaafaddiisana xilligaasi waxaa kusoo dhoweeyey waalidiintii isaga dhalaya weliba ilmihii kale oo walaalihiisa ahay saara xilligaasi farxaddeeda lama qiyaasi karin aad bayna u faraxsaneed in ugu dambayntii john iyo waalidiintiisa iyo weliba walaalihiisa inay la kulantay iyagana ay si diiran guriga ugu soo dhoweeyeen isla wakhtigaasna bannaanka waxaa ka yimid wiil yar oo lagu magacaabaya brian kaasoo ilmo abti ay ahaayeen ninkan john da'diisana 10 sano jir aheyd saara markay aragta aad bay u faraxday isagana waa uu ku soo hordahab ayuuna siiyey sababtuna waxay ahayd in wiilkani uu yaqiinay gabadhani saara wuxuuna had iyo jeer arki jiray john markuu iyada la hadlayo sidaas ayayna isku barteen kadibna wuxuu yidhi saaraan ku weydiiyey hadiidda ay keenta away iyadana xilligaasi waxa ay siisay hadiyar jokolaati iyo weliba mobil yar oo ibad oo isaga ay u keentay ay farta ka saartay isagana farxaddiisa waa la qiyaasi waaya islamarkiina mobilkii yarka ayuu qaatay isagoo xilligaas iyada u mahad celinayay si kastaba haatee saara ugu dambayntii qolkeeda yarka ayaa la geeyey weliba sariir yar loo dhigay saarana xilligaas aad bay u faraxsaneed kadibna waxay go'aansatay inay wacdo walaasheeda si ay ugu sheegtay inay naba tagtay nasiib darase saara waxayba xaqiiqsataba meeshaan inuu internet uusan ka shaqaynin isla markiina john iyo wacda john ayaana guriga yimid kadibna wuxuu yidhi maxaa dhacay iyadana waxay tiri internet ayaan u baahanahay si aan walaashay ula xiriiro isagana waxa uu ku yidhi hawlwelin berri ayaan suuqa aadaya internet dhan ayaana guriga kuu keenaya saarana kama iisa diidin sidaasoo kale john waxa uu bilaabay si ayda cajis u dareemin inay meeshii ay ku sheekaystaan weliba ay ka sheekaystaan waayahoodii iyo siday isku jeclaayeen si kastaba haatee sidii meeshii ugu sheekaysanayeen ayaa si lama filaan albaabkii loo soo garaacay john ayaana isla markiiba bannaanka soo aaday si uu bal u fiiriyay wax albaabka garaacaya waxayna ahaayeen 3 nin isla markiina isagay salaameen sidaasoo kale wiilkii yarka ee brian ayaa isla markiiba gadaal ka soo daba cararay si uu bal u ogaado nimankani waxa ayeen laakiin uu isqarinayay nimankii ayaana john waxay ku dhaheen waxaan u malaynaynaa john wax walba inay caawa diyaar yihiin arrinkiina aan xalli doonno john isla markiiba wuu aamusay kadibna waxa uu ku yidhi wax walba waa diyaar iyagii ayaan isla markii waxay u dhiibeen sun yar waxayna dhaheen suntaan waxaan kaaga baahannahay cabitaanka ama cuntada inaad ugu dartid 7 habeennimo ayaana guriga kusoo laabanaynaa cunugii yarka ee brian markuu intaasu maqla aad ba u naxwoona aamini waayey john ayaa isla markii nimankii ka tageen isagana qolka ayuu dib ugu soo laabtay kadibna saara ayuu wuxuu ku yidhi waxaan u baahanahay inaan soo qubaysto marka waan kuu soo laabanayaa
isagoo weliba baaldi yar hore u sii qaatay. Saarana isma dhibin, isla markii waxay tiri okay dhima leh, wakhtigaada qaado. Iyadana sariirteeda ayay iska sii saarnaatay. Inkastoo xilligaas ay aad u cabsanaysay, ayaa qolkiisa lama filaana waxa u soo galay cunugii yarka ah ee Brian. Weliba xilligaas isagoo dhudhuumanaya ayuu qolka soo galay. Isla markiina ayadii waa ay yaabtay, waxayna tiri maxaa kugu dhacay? Maxaad adoo dhudhuumanaysa qolka u soo gashay? Waxayna u maleynaysay inuu isaga ku cayaarayo. Kadibna waxa uu yidhi aad baan uga xumahay inaan ku dhibo, laakiin Saara waxaan doonayaa inaan arrin kuu sheego. Iyadana xilligaas waxay u maleynaysay inay ku cayaarayso, waxayna tiri beri ayaan sheekaysanaynaa, hadda gurigaada isaga laabo. Sidaasoo kale waxaad doonaysaa inaad ii mahad celiso maadaama aan ku siiyey iPad-ka iyo weliba chokolaadka, laakiin isaga waxa uu yidhi maya. Iyadana waxay ku tiri saaxiib waan daalana iga leexo, beri ayaan sheekaysanaynaahe. Brian oo yaaban gabadhan aamini la ayaa isla markiiba isagoo sii baxa waxa uu ku yidhi la soco ninkan John, waxa uu kuu keeni doonaa cunto ama cabitaan, ee waan ku baryaa markii uu soo laabto cabitaankaas ha cabin, ama cunto haddii uu ku keeno ha isku cunin. Waxayna tiri maxaad ka hadlaysaa? Laakiin isagii waxba siima u sugin oo qolka ayuu ka baxay, meeshii ayuuna ka cararay. Saara xilligaas sariirta ayay ku jiiftay, laakiin isla markiiba ay soo fadhiisatay. Su'aalo badan ayayna bilowday inay isweydiisay, waxayna is tiri muxuu ku wadaa cabitaanka isku cabin? Dadaal ayaana kaaga sharaxaya. Iyadoo su'aalahaas isweydiinaysa ayaa isla markiiba qolka cabitaanka isku cabin. Dadaal ayaana kaaga sharaxaya. Iyadoo su'aalahaas isweydiinaysa ayaa isla markiiba qolkii waxaa soo galay ninkii John ay. Weliba xilligaasi waxa uu gacanta ku hayay biyo yar oo cabitaan ah. Waxa uuna ku yidhi cabitaankan yarka ayaan kuu keenay, marka waa inaad isku qaboojisaa. Saara ayaana isla markiiba koobkii qabatay, inkastoo iyada xilligaas ay aad u cabsanaysay. Waxayna bilowday inay iska dhigto wax cabitaankii cabaya, kadibna afar ayay saartay. Waxayna tiri waaw, cabitaanka aad buu u macaan yahay, marka waan ku baryaa ee koob biyaa ma ii keeni kartaa? Biyo caddaan ayaan u baahanahay. Isagana isla markiiba kama uusan diidin, madax ayuu u ruxay. Waa uuna baxay, waxa uuna bilaabay inuu ayada koobkii biyaha u soo qaado. Goortuusa sidaas u baxay isla markiiba waxa ay bilowday maadaama guriga guri carra u ahay, cabitaankii sariirta hoostiisa gab inay ku siiso, kadibna meeshii dhanba ay ka qarayso. Isla markiina ayadii sariirta ayay isku tuurtay oo waxay iska dhigtay qof hurdaya. Johnna goorta uu qolkii ku soo laabtay, weliba isagoo xilligaas biyaha wada wuxuu arkay Saara inay sariirtii jiifto, weli wax dhaqdhaqaaq ayna samaynin. Kadibna wuxuu bilaabay inuu bal agteeda ku hadlo si uu bal u xaqiijiyo inay ayada si fiican u hurday. Isla markiina wuu ogaaday inay hurdayso, koobkii biyaha ayuu dhinac iska dhigay. John ayaana isla markii waxa uu bilaabay haan yariisa inuu soo qaado, wuxuuna bilaabay wixii afka ka saarnaa inuu ka qaado, kadibna uu bilaabay gabadhii inuu kusoo dul wareegdo. John sidaasoo kale waxa ayuu hoos u aqrinayay. Intaas oo waxaasoo idil aqrinayay, Saara waa ay maqlaysa, aad bayna u cabsanaysay. Waxayna isweydiinaysay ninkan iyo weliba waxa uu samay rabo. Si kastaba haatee John markuu waxyaabihii uu aqriyay uu dhammeeyay, ayuuna isla markii waxa uu bilaabay gabadhii inuu qolka uga dhex tago. Guriga ayuuna gadaal ka qataaray, qunfulna ugu sii daray. Goortuusa sidaas u baxay, Saara meesha ayay ka soo booday, weliba iyadoo xilligaasi aad u cabsanaysa. Waxayna ogaatay iyada dab inay ku soo dhacday. Dhanka ay albaabka ayayna u socotay, waxayna ogaatay albaabka gadaal inaga qataaray. Saarana isla markii waa ay fakartay, kadibna waxay soo aaday dhankaasi daaqadda oo guriga daaqadda ayay go'aansatay inay ka booddo maadaama iyada hal kale ay isaysan meeshaan ay doonaysa inay ka baxsato. Daqiiqado yarna kuma aysan qaadan, inkastoo daaqadda xilligaasi ay aad u yareed. Iyadii daaqaddii ayay ka soo boodday. Goortaysa daaqaddii si aad uga soo boodday ayay waxay u soo carartay dhankaasi duurka. Inkastoo aysan aqoonin meesha iyada u ordayso, haddana xilligaas iyada waxa ay ka ahayd naftaada la baxso oo ninkan iyousan gacan kugu soo dhigin. Saara saacado badan ay sii ordaysay, weliba dhankaasi duurka ay ku sii ordaysay ayay markii dambe daashay. Kadibna waxay ku soo kor dhacday maamo waayeele oo halkaasi guri yar ku lahayd. Kadibna maamadii ayay dhinaceeda u soo orday. Maamada xilligaasi bannaanka ayay fadhiisay, kadibna waxay tiri maama aad baan uga xumahay inaan ku dhibo, laakiin nafteyda halis ayay ku jirtaa, marka waan ku baryay badbaadi. Nin waxaa jira aniga i bursanaya, waxa uuna doonayaa aniga inuu i dilo, marka waan ku baryay aan kula joogo, subax ayaan kaa tegayaa. Maamadii ayaa isla markiiba ka naxday gabadhani, kadibna waxay tiri okay gabadhaydii dhib ma leh, gudaha soo gal. Iyadana xilligaas aad bay u farxday, kadibna guriga ayaa gudaha loo geliyey. Maamadii ayaana sal yar guriga u dhex dhigtay, waxayna tiri gabadhaydii halkan iska soo fadhiiso. Iyadana waa ay soo fadhiisatay, kadibna waxay tiri okay gabadhaydii maxaa kugu dhacay, yaanna ka soo carartay ii sheeg. Saara oo xilligaas aad u cabsanaysa ayaa isla markiiba maamadii u sheegtay inay ninkii iyada ay jecleed ay ka soo carartay, kadib markii iyada uu doonayay inuu dilo. Maamadii ayaana gabadhii garab ka taabatay, kadibna waxay tiri gabadhaydii isdeji, hadda waxaad joogtaa meel safe ah, lagamana yaabo qof inuu kuusoo dhawaado, subax ayaan iska baxaysaa. Bal dhinaca kale aan u soo laabano gurigii John. Isla markiiba waxaa soo buuxiyey niman fara badan oo wadaadiin ah. Bal horta wax yar wadaadiidan aan kaga sheego, nimankani waxa ay sameeyaan sanad walba inay qof ka mid a dadka xaafadaasi ay gowracaan, iyagoo xilligaas sheegay inay ku helayaan dembi dhaaf.
nimankii isla markiina waxa ay bilaabeen inay meeshii ay wax ku akhriyaan goortaysa dhammeeyeen John ayay la hadleen waxayna dhaheen wax gabadha bannaanka u soo saar John isla markiina qolkii ayuu ku orday waxa uuna bilaabay qolkii inuu soo furo goortuusa gudihiisa u soo galay waxa uu arkay gabadhiiba inaysan meesha joogin isla markiina wuxuu xaqiiqsaday gabadhii in meeshaan ay ka baxsatay isla markiina waa uu naxay waxa uuna bilaabay inuu bannaanka u soo ordo nimankii ayuuna ku qayliyey waxa uu yidhi war gabadhii waa baxsatay iyagana waxay bilaabeen inay gabadhii ay raadiyaan dhankaasi duurka ayayna ku ordeen iyagoo xilligaasi gabadhii raadinayay magaceedana ugu wacayay nasiib darase ma aysan helin dhan kale aan u soo laabanno maamadii gabadhii waxay bilaabeen meeshii inay ku sheekaystaan xilligaasna meeshii waxaa yimid cunug yariisa kadibna maamadii waxay bilaawday cunug yariiska inay dhegto wax ugu sheegto cunugiina isla markiiba waa uu baxay oo bannaanka ayuu u orday daqiiqado yar markii ay ka soo wareegtay bixitaankii cunugga yariiska ahay gabadhii xilligaas albaabkeeda waa uu furnaay kadibna waxay aragtay niman ayada dhinaceeda ku soo socda weliba lahay wejiye aad looga cabsanayo kadibna gabadhii waxayba ogaataba ayada in arrinkeedii la ogaaday maamadan ay khiyaantay kadibna waxay isku dayday inay baxsato laakiin isla markiiba gacanta ayaa lagu soo dhigay gabadhi ayaana isla markii waxaa loo soo kaxeeyey dhankaasi meeshii ay doonayeen inay arrinkooda ay ku bulshalaan ugu dambayntiina saara waxaa la keenay guri yar oo ay niman badan ay joogeen gurigaas dhinacyadiisana waxaa ka shinay dab aad u fara badan kadibna gabadhii sariir yar oo meesha tiila ayaa lagu xiray waxa uuna bilaabay ninkii wadaadka ahay gabadhii inuu ku soo dul wareegto xilligaasna gacanta waxa uu ku siday haan yar oo ay wax ku jiraan wuxuuna bilaabay gabadhii inuu ku wareegto wax ayuuna akhrinayay sidaasoo kale nimankiina iyagana waxay ka daba akhrinayeen saara xilligaasi waa oynaysay kadibna ninkii wadaadka ayaa mar kale waxa uu soo qabtay waxar yar waxartii ayuuna bilaabay inuu gowraco goorta uuse gowraco waxuu bilaabay dhiiggeedii gabadhii inuu ku shubo oo meeshii dusheeda uu ku dadaadiyo goorta uuse intaasi dhammeeyey waxa ay bilaabeen inay hilibkii yarka ay meeshii ay ku karsadaan hilibka ayayna meeshii ku cuneen sidaasoo kale cunto ayay ku samaysteen meesha ayayna cuntadii ay ku dhammaysteen goortaysa cuntadii sidaas ay u dhammaysteen ayaa mar kale wadaadkii soo istaagay kadibna waxa uu yidhi barnaamijkeenna waxaan fuli doonnaa habeen dambe marka habeen dambe aan laisku keeno odayaashiina way aqbaleen kadibna gabadhii meesha ayaa lagu xiray meesha ayaan looga tegey dhinaca kale John aan soo aadno subaxiga qoyskiisa waxay bilaabeen meeshii inay ku dagaaldegaan halkaasna ay ku samaystaan xalfad weyn u dabaaldegayaan sababtii xalfaddaas weyn ugu dabaaldegayeenna wax kale ma ahan sababtoo John waa ninka la doonayey sanadkan in asaga la isticmaalo laakiin isagana waxa uu sameeyey gabadhan meesha inuu keeno si uu isaga u badbaado sidaas darteed ayayna bilaabeen qoyskood inay u dabaaldegaan si kastaba haatee intii maalinkaasi dabaaldega u socday John ayaa wuxuu go'aansaday mar kale bal gabadhii inuu aado xilligaasna wiilkii yarka ee Brian ayaa yimid wuxuuna ku yidhi abti waxaan doonayaa inaan ku raaco miyo ogolaanaysaa laakiin abtiga waa uu ka diiday wuxuu yidhi wiilkii meesha layskuma aadi karo adiga carruur ayaa tee bax carruurtaada saaxiibadaada iyo la soo cayaar cunugii yarkaana wuu ka aqbalay kadibna wuxuu bilaabay John inuu soo baxo si uu bal dhinacaas u soo aado laakiin cunugii yarka ay kama uusan harin oo wuxuu bilowday gadaal inuu uga soo daba dhunto wax badan oo John soo socday ugu dambayntii wuxuu yimid gabadhii meesha joogtay kadibna waxaa arkay weli meeshii inay ku xiran tahay sidaasoo kale meeshii waxaa jooga wadaadkii kadibna wuxuu weydiiyey gabadha wuxuuna u sheegay hadda weli inay meesha ku xiran tahay barnaamijkana caawa la soo gabagabay doono kadibna labadu waxay bilaabeen bannaanka inay u soo baxaan goortaysa sidaas u baxeen ayay saara isla markiiba soo toostay waxayna bilowday inay aad isaga oyso iyadoo sidaasoo kale bilowday inay ducaysato laakiin wax yar kadib meeshii waxaa soo galay cunugii yarka ah ee Brian waxa uuna bilaabay gabadhii xaarkii ku xixiranaa inuu ka furfuro kadibna saara intuu u soo dhawaado waxa uu ku yidhi nimankani waxay doonayaan inay adiga ay ku dilaan marka waa inaad meesha ka baxsataa kadibna waa ay ka aqbasho waxayna bilaabeen labadooda si wada jira daaqadii inay uga soo bodaan meeshii ayayna ka soo carareen kadibna waxay u ordayeen dhankaas iyo duurka xilligaasna waxaa hogaaminaya cunugii yarka ah ee Brian waxa uuna yidhi kuma ogolaanaya dadka inay waxyeello ku geystaan ilaa ugu dambayntii ay soo gaareen webigii kadibna waxa uu ku yidhi dhegayso waxaan kaa rabaa meesha inaad ka gudubtid kadibna aad sidaas magaalada ku sii gashid laakiin intaysa bixin ayay waxay ku tiri waxaan doonayaa maxay doonayaa in anigii dilaan maxaana ka sameeyey sheeg cunugii yarka ayaa dhinaceeda soo fadhiistay kadibna wax walba ayuu bilaabay inuu u sharxo waxuuna ku yidhi sanad walba xaafadani qof ayaa la gowracaa qofkaasna waxaa lagu sameeyaa in dadkan xaafadda ay sheegaan in ayaga dembi dhaaf ay ku helayaan marka xilligan waxaa la qorsheynayay John in barnaamijkaasi lagu sameeyo laakiin adiga ayuu khiyaano weyn kuu geystay oo dabinkiisa adiga ayuu kugu soo riday waxa uuna doonayay inuu isaga badbaado adigana arrinkaasi lagu falooyo goortaysa intaasi maqashay saara way aamini weysay waxayna tirasaayay macquul ku tahay ninka adiga sidaas u jeclaad ayaa khiyaano weyn intaasi ku geystay laakiin Brian ayaa waxa uu ku yidhi walaalay waqti maystay hadda ku sii fikirtid waa inaad meeshani ka baxsataa iidan isla markii waa ay ka aqbashay ka horse intaysa bixinayay waxay ku tiri lambarkii waa kan xilli walbood moobil heshid iska kay soo qabo
isagana waa uu ka aqbalay kadibna meeshii ayay ka gudubtay webiga dhinaciisa kale ay u baxsatay meesha ayayna ka carartay dhan kale aan soo laabanno habeenkii markii la gaaray ninkii wadaadka wuxuu galay qolkii laakiinse goortuu qolkii sidaas u galay wuxuuba arkay gabadhii inay baxsatay isla markiina dadka xaafadda ayuu ku soo jeestay wax uuna ku yidhi war gabadhii waa ay baxsatay gabadhii waa ay baxsatay kadibna john oo meesha jooga ayaa wuxuu yidhi maxaa ka wadaa gabadhii waa ay baxsatay kadibna meeshii waaba la firiyey oo gabadhii waa ay baxsatay kadibna john waxa uu yidhi balla sug aan soo raadino waxaa laga yaabaa meelaha inay ku dhowdahay kadibna wadaadka ayaa waxa uu yidhi maya adig ma baxaysi john waa inaad meeshaani joogtaa haddii gabadhaasi la waayay si adiga arrinkan lagugu fuliyo dadkii kale ayaana la dira si ay u soo raadiyaan nasiib darase duurka waxay ku soo wareegaan ugu dambayntii waa ay soo waayeen oo ma aysan helin wax caleemada sidaas oo cunugii yarka ay qolkiisa ayuu kusoo laabtay wuxuuna bilaabay inuu iska taxdo isagoo xilligaas aad u cabsanayay sidaasoo kale maqlayay buuqa dhanka bannaanka ka yeeraya wadaadka ayaana isla markiiba waxa uu ku soo jeestay ninkii john ahay maadaama xilligii barnaamijkii la gaarana john ayaa la yidhi barnaamijka lagu fuliyo maadaama hadda gabadhii meesha ay ka baxsatay john wuxuu bilaabay wadaadka inuu baryo laakiin waa laga diiday xitaa hooyadiis ayaa timi weliba walaalihiis waxay bilaabeen inay baryaan laakiin isaga wax jaleq looma isin waa laga diiday isaga ayaana la bilaabay habeenkaasi barnaamijkii in lagu fuliyo ugu dambayntiina barnaamijka ay sidaasi ku dhammeeyeen 2 bil markii ay ka soo wareegatay cunugii yarka ayaa maalin moobil helay kadibna wuxuu bilaabay warqaddii yartaheed ee saar nambarku u qortay inuu waco nambarkaas oo igu sheegtay inuu yahay nambarka hooyadeed isla markiina waa uu wacay saare hooyada ayaa isla markii mobilkii ka qabatay kadibna waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa saare inaan la hadlo maamadii ayaan isla markiiba waxay u dhiibtay wiilkii waxauna ku yidhi waa brian goortaysa saare sidaas u maqashay aad bay u farxday waxayna tiri iga waran arrinkii maxaa lagu xaliyey isagana wuxuu bilaabay wax walba inuu u sheego weliba john isaga in barnaamijka lagu fuliyey saarasa goorta intaasi maqasho aad bay u farxday waxayna u sheegtay wiilka inay ida meeshaan ay ka soo wadi doonto brian arrinkaas aad buu ugu farxay wuunaga mahad celiyey bilooyin kadibna cunugii guriga ayuu ka soo baxsaday iyada ayaana meel ku sugaysay kadibna meesha ayay ka kaxaysay dhankaasii dibadda ayayna wiilka u kaxaysay waxayna bilowday sidaas inay wax ku barto saxaabay sheekadana halkaas ayay ku soo dhammaanaysaa bal su-aalani weydiiyey cashir nuuce ayaa inkaga baxay sheekooyinka noocaanna ma jeceshihiin fikirkiina komantiga goodbye